For over 2 decades, Somalia has experienced some of the most difficult humanitarian crises in the world, including drought, famine, and violent conflict. Many children have not been able to access formal education. Today, only 4 out of every 10 children are in school. waxaa loo diri jiray wiilasha iskuulada loo diri jiray gabdhahana waxaa la dhihi jiray raaca xoolaha adinka waayo aniga waxaan ku fikiri jiray dhaqanka marka ayada horta wax walba caada yaa jirto caadadu waa iska dhaqan moogta caadada meeshaas ka jirto haddii aniga noloshayda inaan wax ka bedelaan ku fikiri jiray aabbahay markuu bixiyay 13 sanaan jiray ana xoolo raacay oo arig ku maqan baa waxaa lagu yiri aabbaha nin buu kugu daray ilmo yarna waa iska ahaa ninkana ma aqoonin wax jacayl la yiraahdo iyo wax sheeko la yiraahdo iyo ninku la yeeshay iyo nima taqaano maaha aabbahay waxaan sheegay inaanan xoolana dhaqaaleynaynin gadaalna aanan aniga marna xitaa hadduu i qowracaano u laabanayno waxaan u ogaaday nin wax laga sugay waa wax bini aadan laga sugay moogta nin wax laga sugay inayna reer ku noolaan karin baan anigu u dareemay aabbahay waxaa ku xigay aniga aabbahay waan heshiinay ninkii asaga xaaladiisina waa laga noqday aniga ninkii aan doortoon jeclaaday yaan guursaday muhiimadda aniga eedan igu jirtaa oo iftiin ii tahay laakiin qof aan aqoonin mugda ay u gudaasan bari xabo ma kala ugu daalay aqrada si adduunkiisa mid ma amro qof aan aqoonin ayla raad cidna wax fiican haysan anu wiil ay wuxuu iga yar hooyada waxay ka shaqaysaa shaah oo karisa shaahaas macni qofka adii uusan dhaqaale badan haysan ma wada jari karo ilmaha uniformkooda iskuulkooda iyo buugtooda ma wada baaqiyaan how many doors in your class kuwa noodan gabadha marka ay 15 jirto gabadha horta caafimaadkeeda ma u fiicna ilaa ay 20 sano gaarto hadii 15 guursado wayna wax baranin ma caawin karto ehelkeeda iyo waalidkeeda annagu waxaan galaas ku imaano iskuulku imaanaa muhiimadda in aan wax barano markaan imaano sheeko iyo wax oo baayacna ama galno laakiin inta badan buugta ayaan akhrisanaa haddii aan wax waanina waxaan dhahnaa cashirka barto waxba iska faa'iideysanaa oo su'aalaha isweydiinaa waa annaga dhaxdanada isku noqon intay macallimiinta iyo ciyaalka banaanka soo jiraan wax oo had ka dheeraad ah ma qabno. What we get here under this one is addition, okay? That is a half plus 2/6, okay? faadimo shaqada aan qabto markii aan kuu sheegay wixii igu kallifay waxay ahayd haweenka Soomaaliyeed dhibaatada la soo diristay markii aan aragnay yaan waan tashanay taladii aan iskugu nimid bal in aan u gargaari karno wixii aan ka gaarno haweenka Soomaaliyeed oo dhibaataysan afar gabdhood aan leh ilaahay baa wax leh ayo waxaan isku hayaa afar shaqo afarta shaqo waxaa ka mid ah mid gurigaygaan ka shaqeeyaa midna bulshadanadaan u shaqeeyaa oo deegaanka waxaan u shaqeeyaa waxaan ka shaqeeyaa beer midna dukaanka yaan ka shaqeeyaa oo naga raadiya ilmaha nolol maalmeedka ani hadda ilmahayga shaqaan ayaga u raadinaya moogta ani hadda ilmahayga waan ka maskax badanahay waan ka aktafsanahay haddii aniga aan aqoonta maanta ilmahayga ay leeyihiin anigu leeyahay nolosha qoyskeeda wax far badan bay ka bedelanaan lahayd aniga carruurtayda waxaan ku gudaadin jiray oo kaleeta in ay wax bartaan oo qalinkooda wax ku cunaan oo qofna u baahanin alla ma ogi
gabdhaha cidda jooga waxaa jiro kuwa ay hooyadood iyo aabahoodba sabool yihiin oo aysan awoodin yunifoonkooda iyo iskuulkooda iyo buugaagtooda iyo qalbigooda. waxaan ka waaninayaa in ay waxbartaan oo ay iska daayaan guri joogta. waxaan kaloo ku waaninayaa in ay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan. qofka haddii wax barto dadkooda iyo dalkooda wax u qaban karaa, xitaa waalidku caawin karaa.